السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن wanaagsan daawada meel walba aad naga daawanayso ku soo dhawaad xeebtii dahabka iyo waayihii saxardiid qaybteedii labaad. qaybtii shal waxay inoo joogtay haday aragto inuu waxba kalluun ah sidin oo na qaawan yahay. isla markiiba waxay la soo boodo ul oo banaanka ayay ku qabsatay ayada oo rabto inaysan naf kaga tagin ayuu Ilaahay u baxshay abtigiis. subaxdii dambe ayay toosisay xilli hore markaasay ku qasabtay inuu kulluumaysi tago uguna digtay inuusan farbadnaan ku soo noqon sida shalay oo kale. halkiiba dabadeed isna intuu shabaqii baas dhigta u ritay xaggii badda u kacay. markii baddii uu gaaray ayuu wuxuu arkay ayada oo dabeyl weyn dhacayso oo baddii duufaan ku kacday hirarkuna isdharbaaxayaan. dibna inuu ka cabsooday ayuu isiri haddaad imika kulluumaysi istiraahdo duufaan ayaa kula tagayso. markaasuu sug isiri intay kala fariisanayso. markaasuu dhinaceedii iska fariisay. caruurnimo ileen waaci laga weynaade intuu shabaqii kulluumaysiga iska ilaaway ayuu bacaadkii xilligiiba ciyaar iskaga bilaabay. aloolaxyadii bacda ka buuxay ayuu jaad walba u soo aruursaday. markaasuu jaad walba intii u quruxda badneed ka qaatay oo daldalooliyey dabadeedna ka sameeyey guul aad u qurux badan. gooshii baa la qurux badnaatay. kadibna waxay la noqotay inuu u geeyey gabadha abtigii. markuu kuushii dhamiyey oo jeebka ku ritay ayuunbuu ambaraaray oo qoraxdii eegay. waaba casirgaab. maalintii labaadna sidaas buu saxardiid isagoo aan axbad kalluun ah sidin oo shabaqa kaliya dhegta ku sita ku soo noqday gurigii. mar allaala markay ayadii aragtay kii oo aan waxba sidin ayay geed qaari ah ku garaacday. markaana haddaan gabadhii abtigii ka qaban qoortaba way ka jari lahayd. saxardiidna isaga oo wada bararsan oo ooynaya ayuu doc ka mid ah docihii guriga fariistay. gabadhii abtigiis ayaa kadib u timid oo weydiisay waxa uu dulmiga ku galabsaday. markaasuu uga sheekeeyey qisadii kuusha iyo sidii maalintii oo dhan uga lumisay samaynteedii. kuushii intay ka qaaday ayay fiirisay. markaas ayay la yaabtay samayskeedii iyo quruxdeedii. halkiibay ugu mahadnaqday oo u sheekaysay kana bi'isay xanuunkii ilowsiisana dulmigii iyo naxariis darradii hooyadeed. maalintii saddexaad ayuu saxardiid aroortii hore u kacay. shabaqii ayuu dhabarka u ritay oo ilaa iyo baddii ayuu waddada cagta saaray. ilaa iyo inta uu sii socdayna wuxuu Ilaahay ka baryaayay inuuna maantana farmanaan soo noqon. maalintaa wuxuu la kulmay cirka oo aan daruuro lahayn. intuu biyihii sidaa isha u mariyey ayuu wuxuu go'aansaday in aanu maanta maryihii xeeliga ku bixin bacaadna ku dheelin ee uu kartidiisa dhan isugu geeyo sidoo u kalluumaysan lahaa bal inuu Ilaahayna ugu kaalmeeyo isaga oo wax sida ugu noqon lahaa guriga. dabadeedna intuu bisinka qabsaday oo uu shabaqii dacaladiisii isku aruuriyey ayuu biyihii dhex qaaday. dabadeedna dacalkii u ahayay shabaqa ayuu yara dabciyey. wuxuuna dareemay shabaqii oo aad u culus. markaasuu intuu farxay oo isiri walle malaha waa kalluune ee qabo ayuu shabaqii dacalkii u ahayay gacanta ka buuxsaday. markaasoo intuu labadii lugood adkaystay oo wax alla wuxuu xoog lahaa iskugu geeyey ayuu soo dhuftay. mise shabaqii oo googo'ay ayaa gacmihiisii ku soo haray. ileen shabaquba dhagax weyn ayuu ku dhegay. war ileen masiibadu fara weyna inankii saxardiid baa indhaha ku dul ilaabay shabaqii oo haylaamo noqday. isaga oo urku taalo iyo ciid labanka iyo gacanta isku dhageen xasuusanayana waxa ciqaab iyo dulmi sugaya. xilligii ayuu fariistay saxardiid isaga oo murugaysan. markaasuu shabaqii is hordhigay oona isku dayay inuu hagaajiyo. dabadeedna isaga oo filayo inuu sidii ahayd ka dhigo. intaas waxaa inoogu dhammaaday qaybtii labaad ee sheekadii saxardiid. la soco qaybta xigta iyo qaybaha dambo.